marka Xasan al-Basri ardaydiisii buu ku leeyahay haddaad isleedahay meel fiican baan joogaayo anigu lumi maayo meel fiicanna waa lagu lugmi karaayo ugu weeyaan oo nabi aadam calayhi salaam jannada dhexdeeda lagu ikhtibaaray ikhtibaarkiina halkaas nabi aadam uu ku dhacay dadna jannadiina waa laga soo saaray hana isooran buu ku yiri anigu dad fiican baan la joogaayo lumi maayo oo dadkan dhex jooga waa dad muslimiina oo masaajidii iyo culimadii baan dhex joogaana ha ku degmin waayo Aba Talib iyo Abu Lahab intuba nabi Muhammad bay arkeen calayhi salaatu wassalaam munaafiqiintuna nabi Muhammad gadaashiisay ku tukadeen haddana way lumeen oo waxaad ogaataa dariiqa xaqa way ka wacdeen ogow ana is oran caabid baan oo cibaadadeyda maqaam gaadhay oo aanu halka ka soo dhici maayo hays oran ibliis samada buqcad ku taala ma jirto ilaa meel kasto ku taala samada ibliis ilaahay uu ku amaanay uuna ku xusay uuna ku caabuday haddana waa la ikhtibaaray dadna waxaa lagu yidhi fakhruj minha fa innaka rajiim wa inna calayka lacnatii ilaa yowmi ddiin ka dhexbax baa lagu yidhi naxariistayda adigu mid adag ayaa tahay ilaa qiyaamahana lacnadaydii baa kugu dhacday baa ilaahay ku yidhi ha isdhihin aqoon baan leeyahay oo caalim baan ahay oo cilmi baan leehayoo maqaam baan gaadhina hays odhane ninkii la odhan jiray balcaan binu baacuuraa waa nin reer bani israa'iil ahaa ismullaahi alacdamka magaca weyne ilaahay lagu baryo ee ilaahay baryada uu ku aqbalo ninkaasi yaqaanay bal imaam qurtubi raximahullah wuxuu yidhi maqaam ninkaasi wuxuu gaadhay u dhowaasho uu rabbi u dhow yahay maqaam wuxuu ka gaadhay meel alliya meeshuu u jihaystuu daymoodaba waxa uu arki jiray carshiga ilaahay buu arki jiray baa la yidhi falaqiya maa laqiya isaguna wuxuu la kulmay ayuu la kulmo waa la ibtileeyey oo isagana diintiisii dhaneed wuxuu ku bedishay qabyaalad iyo rashu ayuu qatu ku bedishay diintiisii waa Xasan al-Basri raxmatullaahi calayh zamanka uu joogayna waa zamankii taabiciinta waa zamanka nabi Muhammad uu yidhi khayru al-quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum qarniyada qarniga aan jooga ugu khayr badan thumma qarnigan ku xiga ugu khayr badan buu nabigu yidhi oo xagga khayriyada ku sii xiga ardayda uu Xasan al-Basri uu la dardaarmayo qarniga labaad bay joogeen oo ogaada innagana maanta zamankeena ka warrama maanta aan joogno